caafimaad ee timirta. Adkeynta lafaha. Timirtu waxay qani ku tahay maadooyinka selenium, manganese, copper iyo magnesium. Maadooyinkan oo dhan waxay quud u yihiin adayga iyo caafimaadka lafaha, waxayna ka hortagaan xaaladaha ka hor yimaada lafaha sida xanuunka osteoporosis oo ah lafta oo miisaankeedu dhaco oo daciif noqota. Maadada iron. Waxaa laga maarmaan ah in hooyada uurka leh ay cunto maalmeedkeeda ku jirto maadada iron ee laga helo timirta. Iron-ka oo ku yaraado hooyada uurka leh waxay u keentaa dhallaanka xanuunka Addison oo ah xanuun maskaxeed uu dhallaanku ku dhasho, una keenta in uusan bulshada dhexgeli karin, awoodna u lahayn inuu noqdo qof la fahmo, asna la fahmi karo, iyo fikirro aan la jeclaysan. Sidoo kale waxaa timirta la siiyaa dadka ay ku yar tahay iron-ka iyo dadka u baahan inay sifeeyaan dhiigga. Qani ku ah vitamins. Timirta waxaa ku jirta faytamiino badan sida B1, B2, B3 iyo B5. Sidoo kale faytamiinada A1 iyo C. Haddaad cuntid dhowr xabbo timir ah maalintii, ma u baahanaysid inaad qaadatid faytamiinada qasacadaysan. Awoodda wadnaha. Wadnuhu waa halka uu qofku ka nool yahay. Cadeymaha fara badan ee laga helay timirta ayaa dhammaantood isku si u sheegaya in timirtu tahay cuntada ugu waxtarka badan wadnaha ee ruuxa bini'aadamka ah. Sida daraasadahan lagu xusay, timirtu waxay hoos u dhigtaa heerka kolestaroolka oo ah kan ugu weyn ee sababa xanuunka iyo khataraha wadnaha. Caawinta dheefshiidka. Timirta waxaa ku jirta unugyo aad u milmi og, kuwaas oo caawiya dheefshiidka jirka, iyada oo lagula taliyo dadka ka cawda calool istaagga. Waxaa xusid mudan in isla markaana lagu daweeyo shubanka, waayo waxay timirtu isu dheelitirtaa qaabka ay saxaradu u soo marto xiidmaha qofka.